saaxiibayaal sidaa la wada socotaan waxaa inoo soo dhamaaday week aad u qurux badan oo aad u diyaarsanaay maasha allah ilaahay week walba saas nooga dhigo weekii horene waxaa lacaga badan oo waxaa jireen oo aan si qurux badan inta noogu dhaqaaqeen oo dhowr mar aan ka faa'iideysanay lacagahaas waxaa ku jiray lacag oo week dhan iska daba soconay buy inta u galnay sell u galnay buy u galnay oo lagu magacaabo euro NZD oo kale NZD USD oo kale euro USD buy sell ugu faa'iideysanay GBP JPY waa ka faa'iideysanay GBP USD waa ka faa'iideysanay euro GBP dulqaada ka haysanay gold dulqaada suuqaas dhan isbuucaas dhan ka haysanay ma galin USD kaada buy ugu faa'iideysanay weegaanne isla lacagihii la dib igu soo laabtay ayagii la wali fursadii ka dhex arkaa oo marka saaxiibayaal insha Allah waxaa falanqeyn doonaa ilaa 10 lacagood zoomkana waa iska soo gabagabeyn doonaa hadduu ilaahay idmo 10kaas lacagood waxaa ugu horeyn doona lacagta sida sharcigeena waxa week walba ku bilaawno lacagta loo yaqaan DXY waa weekii afaraad oo maleynaa xiriir ah oo jihadan la u diroono sida u jeedaan waxa waa DXY haddii aan week ka soo bilaawno waxa inoo sameeyay wax ajaa'ib oo aad u qurux badan okay garan noqdo mar kale okay DXY waxa ogeen in double topkaas kore iyo double topkan kale xaaladda inoo mareysay sida idin sheegana waxa waa falanqeyntii dhowr week saamka u falanqeynayno suuqa live kan waxa arkay dad badan oo inay fahmeen istiraatiijiyadii suuqa meesha laga soo bilaabo falanqeynta istiraatiijiyadooda marka aragtid waxa waa so amazing waa maasha Allah waa idinku hambalyeena dadaal fiican aad muujiseen insha Allah intaan ka badan waa si dhaqaaqi doonaa hadduu ilaahay idmo marka sida balanteen aad week walba marka waxaan dhaanay lacagta marka week ka soo bilaawno waxa sameeysanaa halaha ugu dambeeya weega awoodda saarnaa marka saarno tusaale kale waxaan sameeynaa weego idil waa soo wada forecast gareeyaa marka hore laakiin halaha dambe ka qaadana halaha naga qosayso weega halahana ka qaadana meesha ugu sareyso gaaro meesha ugu hooseyso gaaro kadib waxa ka sii dhex qaadana marka meesha ugu dambeeyso ah meesha ugu sareyso day doomka tagna si meeshan ay wax badan nooga soo baxaan meesha ugu sareyso gaaro hadda waxa u jeednaa suuqan suuq ku soo jiray inuu ahay wax loo yaqaano side weyn oo ka laakiin buy ahaan oo ahay kadib hal mar hoos loo rido suuqii high test candle qurux badan meesha ka soo sameysmay suuqii isla markaas sidii kor lagu aadiyay haddana hoos laga soo celiyay marka hawshu waxay inoo mareysay anagoo waxa ogeen impulse inta soo dhacay impulse meesha ayadoo noo soo dhacay inta correction muddo dheer lagu jiray impulse kale inuu noo sameysmay waxa filayna inay noo sameysmato the same impulse oo korkan nooga soo sameysmay the same correction ka inay noo sameysmato kadibna suuqii mar walba oo noo tago waxa loo yaqaan double bottomkaas ilaa iyo haddana waxa waaye hal week oo xiriir ah waxa waaye khilaaftay malaha jihada u dirnay ilaa hadda u socota 4 isbuuc oo xiriir ah DXY weekii haddana suuq wuxuu cajaa'ib u ahay waxa waaye lacagtan dhaqaaqiq la yaqaanay sameynayso ah in sas buy nadiif tagto sell nadiif tagto buy nadiif hadda ku socota marka mar walba lacagtan xaaladeedaas quruxda badan ku jirto waa mar walba suuqa noo dhaqaaqayo saaxiibayaal marka suuqa anaga waxa sida aan naqaano lacag la shaqeeyana inta badan ilaalsanaa hadda lacagtan euro USD waxa waa week walba ku saadaalinaa xaaladda ku jirto marka saaxiibayaal hadda war ku dheeraaneen DXY sida ka warhayna wax update cusub ka jiro sidii ilaa hadda ku taaganaa oo ah maadaama impulse uu soo dhacay meeshan oo correction nooga dhacay impulse-gan maadaama la egyahay waxa dhan correction-kan la ekaado waaye hadda waxa haysanaa 1 2 3 4 hadda waxa suganeynaa marka maxay tahay hadda waxa ka suganeynaa meeshan double top yaalo 4 hour marka tagtay 1 hour si qurux badan kugu muuqanaa hadii marka double top kan ee lacagta noogala soo celiyo waa wax aan rabnay oo toos isla u aado hadii kalena mar walba meesha u dirnay oo ah inay noo soo sameyso 1 2 3 gaas kor inay noo soo sameyso si qurux badan oo sel qurux badan impulse-gan oo kale inuu noo dhaco insha Allah maalinka impulse-gan oo kale dhameystiri doonto double bottom-kaas meesha double bottom waxa u naqaanaa meeshaas oo kale double bottom-kaas markay noo imaanaysan waxa waaye waxa rajeynaa suuqa maalinkaas ama weegaas dhaqaaq fiican inuu noo suubiyo lacagaha idilna jihooyinkoodu sax maayaan marka saaxiibayaal insha Allah double bottom-kaas ka suganayna lacagtan hadii 4 hour aad tagno marka 4 hour aad tagno okay 4 hour aad joognaa 4 hour maxaa inooga muuqdo fiiray saaxiibayaal waxa hoos haysanaa 1 2 kor maxaa haysanaa 1 2 3 hadda maxaan dhahnay
double top saan oo kala lahaa double top rayline ka saan noogu dhigay sababta noogu dhigay waxa lacagta meeshan meel laga celin karo waa sababta meel walba saaxiibayaal double top yada iyo double buttonada inaa ka fahanaa muhiim ah waxa ku fahmeynaa double top waxa u naqaanaa suuqa meel laga soo kala wareejiyay dad waxa arkaysaa suuq oo saan intuu sameeyay impulse sameeyay correction intuu soo sameeyo impulse soo sameeyay wuxuu ku dhahayaa meeshan waa suuqa meel laga kala wareejiyay meeshan meeshu jihadiisa cashaa la dhahaa continuation waaye laakiin double top taasoo kale suuq meel intoo kale hadda waxaa dhahayna double button maadaama suuqan suuq sell ah suuq buy ku kulmay suuq buy ah suuq sell ah meeshan ku kulmay double top waaye marka haddii aan ku sii dheeraanin saaxiibayaal marka haddii double topkan lacagtan laga soo celinaayo sharciga u naqaanaa oo lacagta inagula soo celiyo ah in hadda maadaama impulse meeshan oo socdaan in lacagtii haddii impulsegeeda kusii socotane inta jabiso oo si qurux badan taabashadaas kale nooga soo suubis kadibna saas noogu soo daadato haddii dhicayso double top laga soo celinayna waxaa rabnaa retrace inaan xirno retrace mar walba idin sheegaa waa powerful strategy candle ah waay inta candlekan impulsega ku jabi inuu asagii soo laabto meeshaas falaag kaaga sameeyo kadibna suuqii saas kugu sii daabto saaxiibayaal DXY wada kale oo u furan inay suubiso lahan dib had inay ictimaadiso oo inay suuq inta gaab ku furmo meeshan inta ignore gareyso meesha ka sii bilaabato ee dhahdo waa joogaa tusaale kale inay u ictimaadiso waa dhici kartaa laakiin ma u badno inay inta ictimaadiso oo boodana halkaas noo tagto soo daadatan waa dhici kartaa laakiin waxaad strategy ahaan iyo cilmiyin ku dhisan ee tusayso labadaas qaab waaye retrace inaan helno intaas noogu soo daadato in inta noogu tagto marka aniga suuq lacag saas u fafalaada micnaheedu waxa kala jeedaa ascending ka rabaa sababta mar walba suuq ascending kugu tago waa mar walba suuqii daalo waa mar walba suuqii lagu soo celinayo marka si qurux badan kugu soo daadanaya 1 hour hadda tagano the same strategy aragnaa wax iska bedelay mala 4 hour 1 hour kan weekends isku sii u socdaan oo u jeedaan saaxiibayaal hadda in xoga inay laabanayso ekay laakiin ma laabanin sababtoo ah meeshan taasaan fiirino waxa haysana 1 2 hadda inay inta laabato saddex ay meesha tagto kadib double topkaas laga soo celiyo waa wax possible ta inay dhacdo laakiin waxa lacag high probability ay ku noqon doontaa in retracekeeni wali aka suganeen inaan inta noo soo bisaas noogu soo daadato DXY hadda meesha ugu sii baxno lacagta walaasheeda galayna isku dhaqaaqa iyo isku cagsiga isku yihiin laakiin isku dhaqaaqa yihiin lacagta waxa loo yaqaanaa euro USD sida labada socotaan euro USD okay euro USD still waxa waa message-kii aan weekii hore aydan dhowr week oo kale sida DXY ugu dhaganahay aydan ugu dhaganahay oo ah in double topkaas la geeyo lacagtan mar walba in double topkaas la geeyo rabnaa maadaama double topka ka suganoono weekii hadda waxay inoo sameysay waxyaabaha ka faa'iideysan waxa kamid ahaa ayadoo inta maraysa falanqeynay in inta noo imaato markii inta noo imaataa buy gareena waa buy gareynay marka inta noo tagtana waa soo sal gareynay ayadoo salkii noo furana weekii naga dhamaatay laakiin waa iska xireen lacagtan marka saaxiibayaal maxaa inooga muuqda euro USD waxaa idin dhahay maadaama impulsigan soo dhacay mar walba waxaa la rabaa inaad ka fikirtid suuq iskama laabanayo sharcigu ku laabto inuu helo waayo ilaa inuu haddii sharcigu suuqa ku laabo waayo waxaas waxaa la dhahaa inay new saameyn ku yeelato kale laakiin lacag impulse intaan la eg kusoo soobisay aadada waxay dhahay intii kasoo laabanay see kusoo laabanay ma soo laaban karta lacagtan inay soo laabato waxay macquul tahay ishaag impulsigan ay soo sameysay correction la mid inay sameysato oo dheereysato mar alaala markay correctionkii inta saas u dheereysato lacagtii way daashay awooda kusii dhaqaaqda ma laba kusoo laabanay daas one way waa dhigi karnaa kusoo laaban kartaa lacagtina maadaama impulse soo sameysay inay correction sameyso topkaas soo ixtiraam la soo geeyo kadibna si nadiif looga soo celiyo hadda maxaa inooga muuqdo waxaa inooga muuqsaan waa ka heesanaa 4 hour aad tagno si nadiif saa ugu sii aragno okay 4 hour markaa tagno waxaa inooga muuqdo expanding kan waxaa idin dhahay waa channel aad u muhiim ah waxa waaye very powerful ah lacagtii waxa u jeednaa 1 2 3 inaan ka heesano in lacagtii meeshan laga celiyey waa kan double button saan oo kale lahaa lacagta suuq laba jiha meesha ku kulmeen laga kala wareejiyey lacagtii markii saan loo wareejiyay inoo soo daadatay hadda maxaa ka suganaynaa maadaama impulsigan oo soo dhacay correctionkan inay inta noo soo jebiso si ascendingkaas ay noo soo dhamaystirto halkaas noogu imaato kadibna u tirsano 1 2 3 aan dhahno kadibna suuqii halkaas inta noogula celiyo ama double button aan u ictimaadinayna ama haddii kale intaa kasoo tirsanayna saddex taawasha u tirsanayna kadibna suuq in la celiyo si toos ah markaan ishak sababta waxaan saan u dhahayna waxaa mar walba strategy-kiina wana siinaa sidoo kale lacagtii la shaqeysan strategy-keeda wana siinaa DXY oo kale DXY halaha ka dhiman inay soo taabato ishak DXY halaha ka dhiman inay saddexdaas taawash soo sameyso ama double topkan laga soo celiyo iyo euro USD isku ictimaadi
واسكينايان كدب إن العكتي إيجل كلو ريجن دون تو سعنسا لكن هل مد أجادا هدي يورو يو اس دي أن أرجنا إن سيد دادن دون تو that means دي إكسوايا إلا بحس إن إسكسي سعتي أبدان تاي marka lacagtan DXY mar walba waxay ku tahay correlation oo upside ku tahay marka saas oo ihtimaadina Euro USD weegan waxa ka suganeynaa structure-kana siinaa waxa waaye inay noo sameyso correction ka soo bax halkan ka buy gareed doona saaxiibayaal suuqa waxa idin ka codsanayaa inaad dulqaad ka subisaan oo ku degdegin lacagta halkan ka qaadan doona lacagta marka halkan ka qaadanayna ilaa iyo saddex taabasho oo wax ka dhiganayna kii hadii halkaas impulse ku jiro correction kale ka helana waa u jeedna meesha lacagta noogu socoto sawir qurxoon oo inoo soo bisay mar labaad hadii wana hourkaas si fiican u tagno maxaa inooga muuqdo structure-kii la inoo sii qurux badnaanayo oo ah in correction-kii oo noo suubiyo 1 2 hadii kan meeshaan hadda socdo oo 3 noo soo suubiyo oo saas noogu soo daato la soo jibiyo lacagta markii la soo jibiyana waa idin tusay waa dhowr marna way ku celceliyay hadda lacagta in la soo celiyay meeshaan waxaan u jeednaa candle oo powerful high test candle la dhaho maalinkii asaga waxaan u ahaa confirmation soo qaadanay correction kale waa soo dhacay correction kale waa soo dhacay correction lacag hadii aad inta correction ka soo baxdo correction kale galayso hadda korna waxa idin dhahay correction la ku dhamaan doonta correction meesha ku tagi doonta haddana waa u jeedaan lacagtan Euro USD ninkii haystay qof dulqaad badan suuqiina fahansan waaye laakiin waxa waa inta saas kugu soo daad kula la laabanayso dadka qaar way ka ordayaan markay suuq ku cusub yihiin lacagta hadii istiraatiijiyadaada ku waafaqdo oo double top high test candle ka haysatid you don't give cabsi yariis ina ka qaadatay lama rabo sababta lacagta meel kale aadi karto ma taqaano ha iska la laabato sidee rabta u laabato waa tii ajiif gareys meesha u dirtay marka saaxiibayaal Euro USD 10 waxayna baraysaa lacagta correction-ka ina dulqaad u muujino u jeedin sida foolxumada badan ee u soo socotay laakiin saas taan waa haynay hadii halkaas Euro USD ugu baxno waxa inoogu xigto lacagteena kala weega GBP JPY maxaa inooga muuqdo lacag badan waa falanqeyn lahay laakiin saaxiibayaal waa idin karaali gelinayo xogaa waa iska marka GBP JPY hadii aan ka soo bilaawno week maxaa arkaynaa walaal cilada codka gogoa dhankaaga inay yihiin laga yaabaa aniga khadka xogaa inuu fiican yahay okay GBP JPY marka samaysan Raylan halkan dhiganay ku cadeysanay in lacagtan double bottom inoo samaysay lacagta hadda korna waxa idin dhahay mar walba waa idin sheegaa lacag inta impulse samayso correction-ka ee soo bisay iyo impulse-ga soo bisay hadda correction-ka weynaado lacagta awoodi kor ku sii aadama lahan waa la soo celin doonaa waxa waa trick oo lacag ku analyze karaysan kartaan waay hadda fiiri hala yar impulse dhacay iyo meeshan fiiri wax correction dhacay kadibna ugu dambeyn lacagtii waa la geeyay هذا ديب لو كعين ويا مركا إرجعنا مرة بقصة عليها على مدرسة استراتيجية واي لعقت لكن هذه إمبلسك SMSI correction كويريا والغيا وإنه أنت إمبلسك SMSO correction ساسو كل هذه كوسو بسو وأوجد واحد قاعد إنه تاي العكس إنه أود أولاد إنه سيد قاقله لكن هذه إمبلسك إن correction كوسهلا سلنا ناخذه والسعلين دون العقد أوكي حسب مثلا ريلا أنا سارني البطن كان أوجانا إن هذه بلوكي marka day tagno waxa arkaynaa iyadana same structure expanding inay noo sameysay expanding-keedana oo laba taabasho ka heesano oo 1 2 ka heesano hadda waxa ka suganayna marka euro ishak GBP JPY hadii 4 hour asii tagno okay 4 hour tagno waxa waay hadda lacagtan in meeshan inta ixtiraamto laga celiyo laakiin meeshan in laga celiyo anaga waxa nooga qurux badan in meeshan laga kala celiyo oo meel jiha suuq kala wareega ah waxa high probability no ah in meeshan GBP JPY laga celiyo kadibna inuu aado buy ka suganeynay possibility oo laciif ah waxa ka suganeynay hadii ascending-keeda hadii meesha impulse ku imaato way jabsan doontaa laakiin hadii ascending-ka ay soo dheereysato lacagta meeshan waa laga celin doonaa kadibna suuqaas waxay dhinacaas laga sii aadi doontaa buy inay ku sii aaday u badan tahay meeshan waxa u jeednaa expanding inuu noo sameysay sababta suuqa laba jiha meesha ku kulmay suuqan aniga mar walba trade line-kan waxa aragteen waxa saaranaa laba jiha suuqa meesha ku kulmay sideways suuqa u socday suuqan buy u socday meesha ku kulmaa ka soo bilaabanay marka trade line-adan video dhameystirana jiro oo ka subiyay muhiim waa inaad daawataan mar walba ku celcishta si aad isku update gareysaan waxa waa mar walba idin sheegaa week walba bilaabanayo saf adi waxa ta qof cusub oo safarkiisa mar labaad bilaabanayo marka aad is update garey dib wax badan isku gali insha Allah taala saaxiyaal waa wada guuleysanaysaan
okay marka waxaan dhahay lacagtan impulse corrosion allergy ah impulse kale corrosion allergy ah impulse kale xitaa lacagta marka u fiirisid ii sheeg waxa loo yaqaano nature structure waxa la jiro oo ah nature waxa dhahnaa waxa oo suuqa ii sheeg caadiyan dabeecad u leeyahay inuu suubiyo tusaale kale maxaa kamid ah impulse inuu suubiyo corrosion inuu suubiyo impulse inuu suubiyo corrosion inuu suubiyo phase 3 phase 1 phase 2 phase 3 saddex impulse iyo laba corrosion hadda ka hesho lacagta soo yaba kaaga dhamaatay jihadeeda inay bedelato ama corrosion dheer inay iska gashaa laga yaabaa saaxiibayaal igaraal noqda marka saaxiibayaal waxaan dhahay lacagta marka nature-keeda fiirino nature maxaa u naqaanaa waxa suuq bacdiyan uu leeyahay inuu suubiyo ah inuu inta impulse sameeyo corrosion sameeyo continuation sameeyo corrosion continuation marka waxaa tirsanaynaa phase hal impulse phase ah laba impulse phase ah haddii impulse-gan ku dhamaystirto oo ilaa inta ku tagto ama inta ku tagto saddex impulse oo phase ah ka haysataa iyo laba corrosion lacagtii markaas waxaa ka suganaysaa reversal inay ku sameyso dulqaad ka muuji ka nabadgeli lacagaha kale ka qaraabo hadduu ilaahay idmo haddii aad ku degdegtidna xoogaa cilad kale kaa soo gaari doonto marka gbp waa idan 10 cusub ka baran oo ah nature structure-ka inaan suuq u fiirino lacagtan xaaladda ku jirto wixii soo dhamaystay dhaqaaqeedii impulse corrosion allergy hasta affirmation impulse kale corrosion allergy hasta lacagtan oo kale entry risk entry laga soo qaataa mujida sababta 1 2 3 waa kaasa waxa waay halaas waa lacag waali 400 xoogaa bib waay marka saaxiibayaal gbp xaaladdeeda halkaas ku jirta igan ilaa inta aniga ma trade gareyn dooni ilaa inaan ka helo fursad buy ma ahayd salkeeda waa iska nabadgelin doonaa fursad salka kaga faa'iideysan doonaa fursadda buy-ga kaga faa'iideysan doonaa hadduu ilaahay idmo dulqaada ka muujin doonaa inta isaga kay dhamaystirayso lacagta waxaa noogu xigto oo wiiga lacagtan wiigii 2 mar trade gareynay fursad fiicana ka qabanay saaxiibayaal dadka soo codsanaya zoomka waa buuxsan 100 qofood igaraal noqda dad badan waiting list isaga jiro okay lacagtan nasdaq hadii aday tagno sida idin sheegay lacagta hadda ka hor waxa jira arday su'aal u weydiiyay waxay ahayd macaan lacagta meesha ugu sareyso waligeed waaba dhaaftay intee u socotaa u dhahay waxa dhahay lacagtan hadda meeshan hadda u soo sareyso mar ay soo bismo lacag inay mar inta soo dhaqaaqdo meel sameyso structure la ku sii abuuraysa way soo laabanay hadana bari lacagtan hadii dhulka ay imaato meesha ugu sareyso xilli soo sameysay waa micnaheedu waa marka lacag walbo lacagtan u jeedin hadda day tagteen meesha ugu koreysay tagtay waa la soo celi in muddo dhan ay hoos u socotay 90geeda buuxsatay lacagta meesha ka kacday halkaan ay ma jeedin saaxiibayaal waxa jirto waxa loo 90 rule kaas 10 muhiim ah ka sameynaa rabnaa lacag walba meesha ka kacday dib ugu soo laabata kadib dhaqaaqeeda bedelataa hadda lacagtan meeshaan ka kacday isha waa trade gareyn doonaa nasdaq ilaa 90 rule kan ay ka soo buuxin doonto oo ilaa halkaan ka imaan laakiin waa day 90 rule ka fiirina waa day waan iska haysan doonaa trade kan walba lacagayna waa nagu jiri doontaa sidoo kale lacagaha kale way ka qaalisan tahay waan riski badan tahay marka soo diraan waa idin sheeg waxa idin dhahay dadka akoonkooda uu yar yahay saaxiibayaal iska ilaaliyaan dadka akoonkooda u dul qaadan karaan ha haystaan lacag fiican waa ka soo bina maasha Allah marka hadda maxaa inooga muuqdo lacagta meesha ugu sareysa maadaama ay joogto double topki ee noo jibisana retrace ay ku sameysay dib ugu soo laabatay sababta u soo salgareena saasay ahayd 4 hour hadda tagna maxaa inooga muuqdo aan fiiriyo mar kale 4 hour marka tagna saaxiibayaal fiiriya waa kana double topki aniga waxa u naqaan retrace suuqii ma jibiha horta ku soo laabto marka soo laabto meeshan fiir corrosion kale powerful strategy saaxiibayaal marka idin dhahay ben maamulisi master strategy waa wax kaliya suuqan maamulo saaxiibayaal wallahi xaqiiqatan dadkan kale ee suuqa isaga baashaalaayo waxa waa anaga kaga shidan saaxiibayaal sababtoo ah waxa anaga sheegno wax xaqiiq ah waa mar walba ay dhacaan waa u jeedaan waxa in dhahay suuqa hadii double top la jibiyo oo amas uu gaari waay lacagtan waxa ku soo qaadan doona inay retrace sameyso markay retrace sameyso maxay dhahay corrosion sameyso way sameysay kadibna mar labaad xoogaa dib kor u kacday laakiin qaacid sharci ninkii inta ka qaatay uu haysan karay ilaa korkaas mar walba inay soo laabataan sharci ee sababtoo ah sharciga ku haysta lacagta sidoo kale lacagtan hadda waxay noo sameysay wax ajaa'ib ah wax ajaa'ibku maxaa dhigi karnaa strategy reversal ay noo abuurto lacagtii maadaama meesha ay joogto in hoos la aadinayo noo abuurto reversalka ee noo abuurto maxaa waaye saaxiib yaal meeshan la fiiriyo 1 2 waxa haysanaa halkan garab halkan waxa haysanaa garab halkan waxa haysanaa madax maxaa halkaas ugu muuqdo isoo qora hadda taqaanaan reversal pattern kaas magaciisa saaxiibayaal hadda imaqashaan reversal pattern kaas ma sha Allah warrag expert wax sharxaya yaraal noqdo saaxiibayaal head and shoulder waayo waa sax
suuq marka aragtid suuq hadda uu saxnaa ninkii trade inta ka qaato halkan ka qaato marka soo jibiyo ila laabato micnaheedu ma ahan suuqii inuu jihada iska ka bedelay mar walba aad trade ka uu ku saxnaa sababta ah retrace suuq ku qaadatay waxa ka qaadatay after correction uu kula laabto ma aha strategy la kugu soo dirooya mar walba confirmation kugu soo dirooya trade ka waa haysan kartaa hadda marka maxaa inoo suubiya u jeednaa waxa inoo suubiya waxa loo yaqaano ii sheeg wuxuu inoo suubiyay halkan ila fiiriya waa garab waa kan garabkii madaxiina waa kana garabkii kale waa kana maxaa sugeynaa neckline-kii wuu noo dhammaystiray lacagtan weekan fursad fiican ay leedahay saaxiibayaal waana ka faa'iideysanayna waan idin soo diraa dhowr mar waliba si trade gareyn doonaa ilaa 9 rule-ka lacagtan daba socon doonaa 9 rule-keeda hadda ugu soo sokeeyo halkan waaye meeshan trade line halkan sidoo kale halkan waa yahay laakiin 9 rule-ka saxda ah ka rabna halkan waa lacagtan sababta lacagtan meeshan ka kacday ilaa ay meeshan ku soo laabatana waa haysan doonaa marka hadda nasdaq ayadana cashir cusub ka barana oo ah retrace sida quruxda badan ee loogu trade gareeyo lacagta markay develop ku jibiso ina patient ka ahaatid meesha ku aado ama ina intii jibiso in lamida ku soo laabato correction ku sameys kadibna trade sida ku qaadatid halkaas cashir waa ka qaadana ayadana suuq maalin walba marka falanqeynayno cashir cusub aan uga soo dhax bixi karaan saaxiibayaal meeshan waxa u saaray inuu neckline-kii ha nooga calaamadeynayay lacagtan marka waxa sameyn doona waa trade gareyn doona weegan hadduu ilaahay idmo waana kaga faa'iideysan doonaa waxa ka suganayna ilaa 90kaas inaan soo bixiso nasdaq waxay noogu jirtaa lacagaha diyaarsan waliba oo dabka saaran hore kaga faa'iideysan doona ku jirtaa saaxiibayaal okay maxaa inoogu xigo ayadana waa isla aragna hadda 1 hour tagnana still waxa arkaynaa the same strategy qurux badan oo sii weynaanaya ila arkaynaa waxa inoogu xigto lacagtan loo yaqaan GBP USD aan fiirino GBP USD let me see adi tagno kale okay day marka tagnay lacagtan expanding kana fiirsanay waa lacag weega kala ka soo falanqeynay waxaan weegii hore la waa wax update ku sameeyay malahan ilaa hadda lacagta jihadeeda is dhamaysanin impulse-gan soo dhacay correction-kiisa hadda ku guda jirnaa ila inta meesha noo taabto kadibna asina double top-kaas oo noo tagaa ka suganeynay waa waxa loo yaqaano high time frame-ka ka fiirino waay lacagta loo yaqaan GBP USD okay hadda 4 hour tagna aan fiirino lacagtan waa ka soo faa'iideysanay impulse correction large ah impulse correction-keeda kale impulse-geeda hadda waxa ka suganeynaa in lacagtii halkan waa wax loo yaqaano ii sheeg in halkan lacagta laga celiyo wax possible ah wax ina oo noo noqonayo ii sheeg probability waxay noqon doontaa in lacagta meeshan laga celiyo GBP USD iyo GB waa same structure waa ujeedaan saaxiibayaal mar mid walba waxa ka suganayna isku meel in laga wada celiyo GBP USD inkastoo DXY la shaqeyso DXY hadii hadda double top laga soo celiyo lacagta halkan laga celin doonaa okay JPY ne maadaama GBSD lacag ee la dhaqaaqdo GBP ee la tahayna waxay sameyn doontaa inay sugataa laga yaabaa corrections ka sii gasho way israacaan haddii DXY marka inoo tagto taabashadii saddexaad waxaa la rabaa suuq inaan kasii fikirno saaxiibayaal zoomkeedii waxa waa iska war badanaa 10 minute ka soo haray dhowr lacagooda ku soo gabagabeena hadduu ilaahay idmo GBP USD marka ayadana saas oo kale waxa ka suganayna dhowr buttonkaas inay noo tagto dib kadibna kor loo celiyo maxaa inoogu xiga lacagta inoogu xigto waa lacagtay euro GBP ila fiiriyo saaxiibayaal isbuucii hore falanqeynteedii waa wax ka taabtay malaha ilaa hadda waxaa idin dhahaa saaxiibayaal lacagtan double top markaan maalinkaas ay soo binaysay waxaan dhahaa double top-ka haddii soo biso retrace saaxiibayaal idinkoo ka helin yaal qaadan dad badan qaateen way ku qasaareen marka saaxiibayaal waxaa la rabaa suuqan inaad dulqaad ka muujisaan lacagta inaad saas weegyo badan markaa soo ilaalisanayso wallahu waa lacagta markaa weegyo badan inta soo ilaalisatid ee isu kaa diyaariso maxaa ku dhibaya aad inta lacag loos garaleed waxa ku fiican inaad lacag dhan suuqa ka helin moogta taas qaacidadaas weliga maskaxda ku haabo inta mid kale dad waxaa jirto waxay u yaqaanaan lacagta suuqa ka shaqeystaan lacagtooda mu yaqaanaan saaxiib haddii trade inta gashid haddadan oo $500 akoonka ku shubatay oo $100 ay faa'iidid $100 iyo waxay ka mid tahay equity-gaaga ina ilaalisataa suuq ay ka uus ka ceshin marka see ugu ilaalisan trade-kan oo kale isku qaadan hadda trade-kan impulse-ga waxa la double top-kii wuu jabiyay sharciga ku qaadan ma la retrace ka suganayna moosan oo soo bin marka si see ku qaadanayna waxaan dhahnay lacagtan hadam meeshan saaxiibal impulse uu soo dhacay correction kana dheeraysan doontaa zoomkii hore dib ugu laabto weegii hore
kadibna meesha noo soo taaban doontaa si nadiif ah lacagtan usoo qaadan doonaa lacagtan weegan beri iyo beri dambe ilaa xataa habeen dambe inay isdiyaariso u badan tahay in balsigeed iska dhamaystirato kadibna si nadiif ah noogu soo daadato lacagtan dulqaadka muujiyay saaxiibayaal in halkaas inta noo tagto kadibna aad soo salgareynay u badan tahay maadaama 1 2 3 ascending was ascending inta ka heli doonaa marka strategy dayo kala tagto ascending quruxda inuu yahay waa dareemaysaa marka lacagta meeshaan ka soo salgareyn doonaa hadduu ilaahay idmo euro GBP strategy-keeda waa kaasa waxaa ka suganayna 3 taabashadii ka saddexaad inay noo soo suubiso صاحبي على قرا النقطة مركب waxaan dhahay euro GBP waxa ka suganayna meesha noo tagto okay euro GBP waa the same structure waa iyadana GBY iyo GBUSD saas isku mid yihiin ayadan expanding ku jirta waxa ka suganayna in taabashada halka inta noo sameeyso kadibna kor loo celiyo laakiin wiiga hore waxa ka suganayna lacagta in inta halkan laga celiyo laakiin hadda waxay u baahan tahay maadaama halkan double button haday ka hesho in marka la celiyo oo halkan inta tagto 1 2 ay soo sameeyso kadibna la soo salgareeyo lacagta u badan tahay hadii aysan noo sameeyso waxa ka haysanaa 1 iyo 2 marka way ixtiraami doontaa kadib markay laabato halkan u fiirin doonaa saana dhihi doonaa 1 waa haysanaa 2 waa haysanaa kan in halkaas tagto 3 kadibna lacagtiisaas lagu soo daadiyo euro GBP saasa sameeynayna 6 minute noo haray lacagna dul marayna haduu ilaahay idmo walaalkaas ya jefliski ma nagu jirto GBP NZD 6 minute noo haray saaxiibayaal waa iska soo gabagabeynaa iga raali noqda xogaa waa jeclaan lahaa inaan 45 minute kala qaadano laakiin hal iga raali noqdo insha Allah USD kaada ku jirta liiskeena NZD USD afiirino NZD USD saaxiibayaal waxa inoo sameysay weygii hore lacag si fiican ugu faa'iideysanay ahayd baa u qaadanay sila u soo qaadanay waxa inoo sameysay maadaama impulse soo dhacay dhahay correction ka ay sameysatay hadda lacagtan waxay u badan tahay saaxiibayaal maadaama impulse soo dhacay correction oo dheeraan way in la celiyo oo double top-kaas lagu celiyo kadibna soo salgareeyo laakiin hadda maxaa ka diyaar ah maanta iyo beri iyo weegan waxaa ka diyaar ah maadaama impulse soo dhacay correction lagu jiro in halkan ay imaato 1 2 3 ah heshid taabasho saddexaad kadibna suuqi marka lacagtan dulqaada ka muujin doona halkan markay qaadad imaato abay u qaadan doona NZD USD markii halkan soo diyaar garowdo waxa u qaadan doona bay u qaadan doona saaxiibayaal waa kaasa sidoo kale fiiriyay saaxiibayaal waa wax powerful strategy kan dhahayo impulse-ga meesha jabiyay isla asiga soo laabtay meeshan marka hadda 15 minute kale ku geeyay waxa arkaysaa correction qurux badan inuu yahay maadaama retrace correction kadib ka qaadano whereas saaxiibayaal waa kaasa retrace oo suubiyay suuqii oo ku soo laabtay halkan correction isla markii maxay ku sameysay aaga noo sameysay waxa la dhaho waa baran doona waa baatan dhan oo suuqa waxa waaye double top ko kale uu eegay laakiin uu ka qalqaloocan yahay aaga loo yaqaana laakiin confirmation kugu daraa marka as risk laga soo qaataa hadii lacagtan fiiri saaxiibayaal ku qaadatay in retrace ku suubiso halkan ka qaadatay culays ma laha hadii halkan kula gasho stop loss kaaga mar walba halkaas dhiga leed mana kaaga dhacayso stop loss kaaga halkaas hadii stop loss ka dhigtid kadibna mar labada soo salgareyn kartaa hadda lacagtan dulqaada ka muujin doona halkan inay noo sameeyso kadibna kor u laabato USD CAD afiirina ayadana USD CAD maxaa ka diyaar ah USD CAD waa idin sheegay impulse-ga sameeyay correction-ka la dheeraaday halkan waxa ka haysanaa 1 2 way noo jibisay retrace noo sameysay inay ku laabanayso oo taag sameeyso kadibna lacagtan mar alaal markii ay noo sameeyso ii sheeg waxa ka qaadan doona in correction noo sameeyso kadibna sidaas ku soo qaadan doona ama mini double button intay noo sameeyso halkaas marka la tagto kadibna halkaas laga soo celiyo GBP lacagtan loo yaqaan USD CAD haduu ilaahay idmo ilaa ay caawin isdiyaariso u badan tahay suuqa doo furmay la subaxi bari waxa way lacagaha diyaarsan qaadan doona ku jirta ayadii nasdaq iyo waa u jeedin saaxiibayaal candle-kii baxay candle lamida soo laabtay hadda candle-ka marka 4 hour joogtid wuxuu eegay inuu soo aadi doono halkan ku xirmi doono kadibna kan kale halkan ka sii qaadan doona haduu ilaahay idmo USD CAD waxa ka suganaa double button in lagu soo celiyo kadibna buy halkaas loo sii aadiyo isha maskaxdana ku haya GBP NZD inay falqaysantaa u maleena ayadan waxa ka suganayna xogaa sila u dhiman marka silkeeda dhameystirato saaxiibayaal waa kaas dadka teamka dhahay GBP NZD fiiri waxa u dhiman in double button kan soo taabato kadibna meesha laga celiyo maybe in lacageeda saaxiibada ay sugto ayadana GBP-da kale inta meeshan soo gaarto correction-ka iska dheerayso kadibna la celiyo waa dhici kartaa
lacagta weega arabna oo fursada fiican ilaalsanayna waxa waaye gold saaxiib yaal gold weegii hore waxay dhahaa dulqaad ka muujiya dad badanaa galay candle soo dhacay arkayaan way raacayaan suuqii way ku qasaarayaan marka saaxiib yaal lacagaha dulqaad ka muujiya lacagtan fiiri waxay double topkii noo jibisay retrace oo aan naqaano meesha soo bin fiiri way baxdo ku soo laabatay laakiin maxay soo bis correctionka meesha ka rabna meesha noo soo bin saaxiib yaal waxay dhahaa xasuustaan lacagtan saaxiib yaal maadaama ay jibisay ha soo laabato halka markay ku soo laabato inay correction ku soo biso markay correction ku soo bisana saaxiib halkaana ka qaadan lahayd marka lacagaha saaxiib yaal dulqaad ka muujiyo in lacag waa sugana inta sugan karo saaxiib yaal sababta lacagteeda marab inaa loo isgareeyo lacagtana confirmationaa ku qaataa confirmationada ayadoo ii buuxin ma qaadanayo sidee rabtaa u soo daadato deer hadda dii caawa ee gold halkan ka soo daadato ina continuation ka qaato waxa loo yaqaan ii sheeg reduce risk ina ka qaato mee risk entry ma qaadanayo haddii hadda meesha inta laga soo celiyo oo sharci ayadoo san ahayn laga soo celiyo oo sal soo aado correction ka soo bisa ka qaadan doona reduce ka qaadan doona laakiin risk ma ka qaadan doona laakiin lacagtan haddii inta ascending ka u dirnay ee noo soo biso 1 2 3 fear 1 2 3 was ascending ee noo soo biso waa soo salgareynayna marka saaxiib yaal maadaama double top ka ay la jibay aad retrace kaagi oo soo diyaarsanayn lacagta dulqaad ka muuji 1 2 3 ka sata 1 2 ka sata 3 ga ku soo dhameystirto markay 3 ku soo dhameystana hadana meesha waxa u jeedaa ascending kale fear 1 2 3 ku soo bisay lacagta ku soo daadanaysa marka saaxiib ilaa 90 rollkaas ku soo buuxin doonta 90gan ko waxay ku soo bixinaysaa 90gan 90 rollkan ku soo bixinay kadibna 90gan kale ku soo bixinay halaasa ka badan marka halaas soo dhici doona aad wax walba kaaga muhiimsan saaxiibayaal lacagta inaad dulqaad ka muujisana filaya lacagta waa goldi marka zoomkeena wuu naga dhamaaday 1 minute soo haray waa kaas saaxiibayaal 10 iyo 1 lacagood falanqeynay 11 kaas lacagood haduu ilaahay idmo structure-koodana waxa soo dhigi doona groupka idin soo dhaxdhiga waa kaas marka saaxiibayaal halkii daqiiqo noo soo harana waxaan sameynaynaa motivation-keena yaraa saaxiibayaal waxaa idinka codsanayaa suuqan cilmi u rabaa suuqan dulqaad u rabaa suuqan consistency u rabaa suuqan practice badan u rabaa saaxiibayaal waqti hala geliyo qof walba ha dadaalo intuu kor fadhi karaa kor fadhi computerka saacado badan qof walba intuu bixiyo xaq u leeyahay ana waxaan idin hubaa saaxiibayaal inta qof consistent noqotid aad dadaashid wallahi billahi ilaahay inuu isku qadineen ilaahay inuu og yahay meesha u socotid cibaado dadaalkaaga cibaado ku darso hubaal waa ilaahay inuu isku qadineen marka qofka uu inta sababta irsaaqadeeda asaa hor ku balan qaado qof intuu dhaqaaq soo biyo wixiina uu ku adkaysto kadibna saaxiib uu guuleysana qofka insha Allah khayr isku rajeynayna dhamaanteen ilaahna wada caafiyo saaxiib yaal habeen wanaagsan zoom kana hadii ka gaaro youtube ka soo dhigi doona insha Allah wassalaamu calaykum